بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومعهد العتيق لتعليم اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي سود هذا ما أنت وحن قاضنينا درسي عصب أو كم ذا من أسماء الإشارة أيانو ما أنت قاضنينا شالي درسي بأنه صد ماذا الحمد لله أسبوعي هراء أنو بلوني الحمد لله waxaad moodaa inaan si dardar leh ama si xoog leh aan ku socono ardayda waxaan rajeynayaa dhamaantood inay ka faa'iideysteen insha Allah. marka maanta darsiga aanu galeyno waxay tahay haadani wa amthilatuha mawduuciisa weeye haadani wa amthilatuha darsigana koobaad haadani wa amthilatuha. haadani marka maxay tahay haadani waa magac wax lagu tilmaamo kaasoo lagu tilmaamo laba shay wixii laba ka kooban kaasoo lagu tilmaamo wixii laba ka kooban. marka waxaanu adeegsan doonaa mustalax iyo afbixin kale wixii laba ka kooban markasta ma dhihi karno. afka Soomaaliga waxa jira waxa la yiraahdo kisi iyo dhaban. kisi iyo dhaban. kisi waxa la yiraahdaa afka Soomaaliga waa hal shaygi hal xabba ah. hal xabbo moos hadii lagu keeno waa kisi. hal nin haduu ku soo hor istaago waa kisi waa hal qof. dhabanna waa shayga laba ka kooban. laba nin hadaad aragto dhaban baad leedahay. laba moos hadaad aragto dhaban baad leedahay. waa laba ka koobanta. maanta laga bilaabo marka kisi iyo dhaban baan adeegsanayna kisi iyo dhaban. wadarna waa la yaqaan Soomaa wadar waa jamci waa. wadar maxaa laga wadaa jamcigi. marka maxaa weey waa kisi dhaban iyo wadar saddexdaas waa kisi afcarigu maxaa lagu yiraahdaa waa mufrad. dhaban afcarigu maxaa lagu yiraahdaa مثنى ayaa lagu yiraahdaa مثنى maxaa lagu yiraahdaa dhaban مثنى maxaa lagu yiraahdaa مثنى waa dhabanti waa shayga labada ka koobna. jamci waa af carabi af Soomaali maxaa lagu yiraahdaa wadar maxaa lagu yiraahdaa wadar sida qawaacida u qaado hagaag. maanta marka waxaanu galnay darsi dhabanta ka shaqeynaya shayga laba ka kooban. haadani jawrabani darsigii baan hore ka galay. haadani jawrabani kuwani waa labo sigisaan wajida kuwani waa laba sigisaan waa sharabaadyaha waxa loo yaqaano ama sogoska waxa loo yaqaano waa marada jilicsan oo suufka ee buudka markii la xiranayo lugta la gashtay waa inta. haadani jilbaabani kuwani waa laba jilbaab. haadani jilbaabani kuwani waa laba jilbaab. jilbaab ama xijaab waa taqaanaa Soomaha waa dharkii dumarka. wax yarna waxaan rabaa inaan baraarujiyo erayadan hadda waa dhaban kisigoodu sidee baan ku heli karnaa ama mufradkoodii waxaan ku heli karnaa alif tathniya alifti wax dhabaynaysay oo dhabanta ka dhigaysay alifti wax dhabanaynaysay baanu ka jaraynaa. alifta marka wax dhabanaysa sideen ku helnaa waxa weeye alifta wax dhabanaysa hadaad aragto waa nuunkan ugu dambeeya iyo alifka asaga ku xiga waa inta. waa nuunkan u dambeeya iyo alifka dhanka midig ka xiga weeye. hadaad maqasho maxaa wax lagu dhabaneeyaa ama dhaban wax looga dhigaa waa nuunka iyo alifta. marka waa maxaa la yiraahdaa waxa loo yaqaanaa alif tathniya alifti wax dhabanaynaysay. marka hadaan jaro nuuntaas iyo alifta dhanka midig ka xigta hadaan jaro oo alif tathniya ah maanta laga bilaabo waxaan ku leeyahay intuu darsigan socdo alif tathniya jar. markaan ku leeyahay alif tathniya jar waxaan ka wadaa waa nuunta iyo alifka. hadaan hadda alif tathniya aan jarno maxaa soo haraya jawrabun baa soo haraya. waxa soo haraya jawrabun ayaa soo haray. oo hadda waxa laga rabaa ereygu markuu kaligiis meel istaago alna aysan ku jirin alif iyo lam baan ka wada aysan ka horeyn waa inaad laba godaa xarafka u dambeeya jawrabun waa inaad tiraahdaa. hadda laakiin waxba la xiriirayo alif tathniya la xiriirtay alif iyo nuun baa la xiriirtay marka baadi waa la kor dhigaya. hadii laakiin aliftii nuuntii aan jarno kelimadiina aana aysan ku jirin al ama alif iyo lam aysan ka horeyn sida al jawrabu oo kale haddaysan ka horeyn waxaad leedahay bacdeeda laba god baad saaraysaa dhawaaqeedana waxaad leedahay jawrabun. kelimada ku xigta aan ku tijaabino jilbaabani alif tathniya jarnay jilbaabun ayaan leenahay jilbaabun. haday laakiin alif lam gasho maxaan leenahay aljilbaabu hal maran goodeyna bacda bas aljilbaabu. qawaacida insha Allah qaato xifdiye hagaag. هذان جوزان الهندي لبض كواني ولبا قنبه. هذان جوزان الهندي كواني ولبا قنبه. قنبه واتغاني جيدك قنبهايو عبتانك لغا سمين جري سليدها لغا سو سميو واد اسكا فهمي كرتا عنتدنا لغو درسدو. هذان جاموساني
kuwaani waa laba lo-gisi haadaani jaamuusaani kuwaani waa laba lo-gisi lo-gisi waxa la yiraahdaa jira lo-gisi baa la yiraahdaa waa lo madow geesana leh waa ugaartay ka mid tahay oo ugaarto kale nooshahay Afrika ku badan tahay hagaag haadaani jamalaani kuwaani waa laba geel waa geeli aad taqaan oo laba waa dhaban bimacnaa laba neef oo geela weey haadaani jiiraanaani kuwaani waa laba daris haadaani jiiraanaani kuwaani waa laba daris waa laba nin oo daris ama laba haween oo daris weey laakiin waxa hadda aan ka hadlayna haadaani yaa iskale ma labba iskale mise dhadig labba iskale haadaani sida uu ugu haadaani labka kaliya lagu tilmaamaa ee dhadiga lagu ma tilmaamo lab iyo dhadig maxaan ka wadaa lab ragga iyo wixii la halmaala laga wadaa dhadigna dumarka iyo wixii la halmaala laga wadaa haadaani labka iskale marka waa ragga iyo wixii la halmaala iska ilaali tii dumarka way noo dambaysaa haadaani jiiraanaani kuwaani waa laba daris haadaani jucalaani kuwaani waa laba doorshaan haadaani jucalaani kuwaani waa laba doorshaan ama kuwaani waa laba xaarwalwaal dad baa u yaqaana juclaanku jucalku aan ku iraahday juclaan waa jamcigiisii jucalku waxa la yiraahdo jucalka waa doorshaan baa loo yaqaan ama xaarwalwaal waa bahal qolof madow oo adag leh oo xogaa kuusan madowna saxarada xoolaha iyo saxarada bini'aadanka ayuu intuu jaro oo duuduubo sidii lindhanaan ka dhigo ayuu dabadiisa dambe ku kaxeeyaa godkiisu gashtaayo ku cunaa waxa la yiraahdaa xaarwalwaal bay dadka qaar u yaqaanaan qaarna doorshaan bay u yaqaanaan marka caynta dhig markaad rabto inaad mufrad ka dhigto ama aad ka dhigto kisi jucal dheh caynta isku reebin waa haddii kale juclaan oo caynta reebto juclaan jamcigi jucal weeye waa wadarti jucal hagaag hadda waxa noo yaala laakiin cayntu way kor dhiganta waa jucalaani waa dhaban hagaag haadaani jaraadaani kuwaani waa laba anyax haadaani jaraadaani kuwaani waa laba anyax haadaani jazaraani kuwaani waa laba karooto anyax waa la yaqaan Soomaaliya dib hadaan ugu laabto anyax waa bahalka loo yaqaan haraati geelaha macaawiye waa bahalka loo yaqaan haraati geelaha wuxuu cunaa dalaga iyo wuxuu cunaa cawska iyo cagaarka dhan cunaa waaye dhaweedna waayadii laga cabanaya Afrika oo dhan asagoo duulaan oo tiro badan hal mar intuu ku soo dago geedaha hal marna ka kacay geedihii wada ebero intuu cuno waayadii la buufinayay waa bahal laga cuno waaye dhaweedna Soomaali ay ku kacsaneed waa la cunaa waa xalaal ay lahaayeen lagana aadna looga cuno dhanka ay Uganda Soomaalidana waaye dhaweed ay yiraahdeen waan cunaynaa markii uu soo weeraray beerahooda marka waana xalaal maahan xaraan haraati geelaha ama bahalka loo yaqaan anyaxa waa xalaal waa la cunaa hagaag halkaas baan kaga baxay haadaani jazaraani kuwaani waa laba karooto haadaani jazaraani kuwaani waa laba karooto karootadii aad taqaaneen kalarka oranjada lahayd ayadoo caadiyana la cuni kalay ayadoo la kariyana cuntada lagu darsado iyo qudaarta dusha looga daro sida basasha iyo barbarooniga oo kala weeye oo la yiraahdana indhaha u roontahay cabitaankana laga shiido hagaag haadaani xidaani kuwaani waa laba kabo haadaani xidaani kuwaani waa laba kabo erayadan oo dhan markaad mufradkooda u baahato ama aad u baahato kisigooda maxaad sameynaysaa alifu tathniya ayaad jaraysaa erayga xifdi alifu tathniya ayaad jaraysaa alifu tathniyana waa nuunka iyo alifta ku xigta weeye dhanka mid ka xigta oo la jaro xidaun bas baa soo baxaysa hagaag darsiga inta buu ku egyahay waxaan rajeynayaa maanta inuu darsigu yahay darsi aad u fudud ka macaan duruustii hore bal fiiri waxyaalo badan baan soo faa'iidnay asmaa'ul ishaara ardayda luqadda carabiga aan aqoon danta aan kaleena maxay tahay ardayga inuu barto hal qof marka tilmaamaysid maxaa lagu tilmaamaa hal haweeney dumar marka tilmaamaysid maxaa lagu tilmaamaa laba raga ama laba dhaban ah marka tilmaamayso laba maxaa lagu tilmaamaa hadhowdiina labadii muxuu ahaa inuu u galo wixii lagu tilmaami lahaa laba dumar ama laba dhadig ah wixii lagu tilmaami lahaa marka faa'iidadaas bay leedahay dad baa waxay leeyihiin xalayna soo qorayay ardaydu kama dhamaadaan miya haadihi asmaa'ul ishaara kama gudbaan miya asmaa'ul ishaara hadii adigu aad carabiyada aad taqaano adiguba waa soo martay marka maahan ardayda inaad la yaabto ama aad tiraahdo ardaydan maxaa ka khaldan marka waa kaas duruustu saas bay ku socon doontaa asmaa'ul ishaara waa dhameysan doonaa ardayda kale hal la gaarsiiyo macadka hal la faafiyo الدال على الخير كفاعله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضدك خيرك ضدك تصيا وحو لم يده سيده انو سميه
haddaad youtube-ka nagala socoto casharkan oo qoraal ah oo pdf ah ama warqad ah waxaad ka helaysaa commentiga u horeeya haddaad telegramka ku jirtana khayr telegramka inaan soo dhignay جزاكم الله خير أحسن الله إليكم ومعهد العتيق لتعليم اللغة العربية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته